waxay ku howlan tahay diyaarinta mid ka mid ah barnaamijkeeda naqshadaynta oo ay u sameynayso macaamiil la soo xiriiray oo doonaya in gabar lamaanihiisa ah uu si lama filaan ah u guddoonsiiyo hadiyad. qaybtan waxaa lagu magacaabaa romantic, waana mid ka mid ah qaybaha ay samaysatan loogu dalbashada badan yahay. si gaar ah waxa uga dalbada lamaanayaasha. ma ahan howl sahlan marka loo eego hababka iyo shaqada adag ee loo marayo diyaarinta barnaamijkan. waxay adeegsataa agab loogu talagalay naqshadaynta xafiisyada, aroosyada, xafladaha gaarka ah iyo goob kasta oo u baahan qurxin, iyadoo agabkaas qaarkood ay uga yimaadaan meelo ka baxsan dalka. Sagal Axmed Xuseen oo ah milkiilaha Sagal Designer shaqadan way jeclayd yaraanteedii, laakiin waxay ku dhiiratay inay bilowdo oo ficil ay u bedesho sanad ka hor. طبعا ولا فكر كان أصلاً ويراجع له وحياة قرحيسك hoteelada iyo waxyaalahaas uu qurqurxin jiray marka hore, laakiin fikirkan dabcan ahaan inuu ka jirin hotel la qurxiyo ama romantic guriga lagu sameeyo dabcan waxay u dhashtay 2016. waxay waqti ku bixisay sidii bulshada ay uga gadi lahayd adeegyada ay sameyso oo dadka qaarkiis aanay ka haysan faham badan, balse iminka waxay leedahay macaamiil badan oo jeclaysa adeegyada ay sameyso. dabcan dadka Muqdisho joogo badanaa waxay u baahan yihiin juhdi lagu bixiyo oo laga gado. marka hore dadka waa ka gadi jirnay waxyaalaha qurxino asxaabta u sameyn jirnay iyo firiye waa ka shaqaysiin jirnay dadka maskaxdooda ka dhaadhacdo. dabcan alxamdulillah barnaamijka dadku way fahmeen, qof walba aroos dhiganaad hotelka ku soo jarto wuxuu raadinaa qof u qurxiyo. waxaan nasiib yeeshtay qofka kaliya ugu horeeya Muqdisho wax qurxiyo ka bilaabo. dadka ku xiran adeegyadeeda waxay inta badan kala soo xiriiraan barteeda Facebook, waxayna mararka qaar ku qaabishaa hoygeeda inkastoo ay rajeynayso inay yeelato goob rasmi ah oo lagu soo hagaago. أنا كهلا حريرنا وحنا عرقني بيت كذا عرقني وحنا يدور لسانة بدن سمينا سوق روح بدن سدا درتي هذا مقدم وعني وحنا ولا حريرنا وحنا عنا لسان كاس أو بهنا نوس ميسد كذبنا نوس ميسد أنا أفرح سنة سوي وعني نوس ميسد. waxaa caawiya asxaabteeda oo qaarkood ay bartay hawshan, waxayna markaan aaminsan tahay inay hawshan u tahay shaqo nolosheeda ku filan oo iyadu ay samaysatay. alxamdulillah horta waxa Soomaalida badanaa markii loo ganacsiga maxay ka faa'iiday way ku adagtaa inay sheegaan, laakiin dabcan aniga sagal ahaan alxamdulillah waa ka faa'iiday sababtoo ah wuxuu Ilaahay bogsiye lagama deeriyo. barnaamijka markaa bilaabay qarashkayga galay iyo fikirkii iyo juhdiga soo bixiyay waxaa la yaabaa kamira dhalaa wilina waa rajeynaa kasii mara dhalo. alxamdulillah faa'iido weyn waa ka gaari doonaa. Muhyiddin Macalin Cabdullaahi, SN TV, Muqdisho.